laysu soo dhacayay waxa miiska hadalka ee midnimo qaran la soo saaray qaybtii 12aad ee silsiladii milgeeyay Ismaandha waa markii ugu horeysay ee ay silsiladan ka qayb qaataan hablaha abuur kale ee Soomaaliyeed dhaantadani waxay ka soo maaxatay abwaanada murtida culus ee xaali dheeman oo difaac adag u gashay xawaleydii ay jinsiyadda wadaagayeen xaali ogaan Cismaan Jagnaato oo isugu jawaabtay ayaa tiri ma lafsiga cuntada ee ku mahmaahaysana masarreeyda dumar ma malaa'igba sooma muhanayaan manfac goortay arkaan qaybtan 12aad waxa codkeedii macaanay nagu soo tabinaysa fanaanada luuqdeeda la isku raacay ee Xaliima Hilaac oo gaafoota iyo tiimkii rag ahaaba xambaaraysay laxanku waa wartooti muusigu waa Maxamed Yare waana soo saaristii midnimo qaran filmis iyo Cabdi Hargeyso idin leh safsaf baa la kala yahay sinayeenaanu kala tagin معني عن رضو ما ملكيدا لي ماما ساير الهبلو ما تتاقلو مي انت بيبا بهبلادكو مشغول سنتين معني عن رضو ما ملكيدا لي ماما ساير الهبلو ما تتاقلو مي كانت ميستي معيار رقو كما دادو اللي مارهكني لي مسري انتاكو مشغول سن كانت ميستي معيار رقو كما دادو اللي مارهكني لي ملبسيغا عمتادايدكو مهما هيسانا كفيرسو مسريدا دومر ما ملايق با كفيرسو سوما موهانايان نفع قورتيركان ملبسيغا عمتادايدكو مهما هيسانا كفيرسو مسريدا دومر ما ملايق با كفيرسو سوما موهانايان نفع قورتيركان لمورن كو مشغول ترى ما شقاما رديدا يا دنيدا لمر انت النار يلا هيد مو حكا لمودن كينا دومر لمورن كو مشغول ترى قصادي أدوني معي ويدي والي سيدي وما قيامك توضى بيحين
درتي ما قفيو وقلك ما قصادي أدون